وأنا عيني اسمين جيسي أنا حبين كترسن قرك قرنك هوين كسوماليات وحان مان تربا إنان كجهلو شقاقوين كيراي كذا عيد جمدة جلالقسي دراد يشالي إنكستوي مان تحالة دي أد ودجنت هاي واقع ما ورت أرمها كذا عمامل كي إسبهان واجا كذا عين إذا ما ذهيل ولا أما أمسون النوسو جرمدي مروا البنا كذا سيدان وذو أجنا قبل كهيران خاصة دجمة جلالقس ويصون نقطة لبعتها كذا حياة شعب كدجن دجمة جلالقسي iyo isfahanwaaga ka dhaxeeya ciidamada Djibouti waxaana ugu wacan oo inay u turjumaan ama ay matalaan laga rabay waa mas'uuliyiinta degmada Jallaqsi ka soo jeedo haday noqon lahayd gudoomiyaha ku xigeenka gudoomiyaha amni gudoomiyaha arrimaha bulshada waxa la rabay dadkaas codkooda inay ku hadlaan u turjumaan dhibka jira iyo baahiyaha ay qabaan iyo dhibka ciidamada ku qabaan inay ay kala hadlaan dadku waa dad beeraley ah subaxdii waxay u kala haan beerahooda xoolaha way soo foofaan wabiga la keenaa habeenkii miinooyinka jidka la gelinayo Djiboutiyaanka soo bixi jiray oo ka bixin jiray jidka hadii Djiboutiyaanka la carqaladeeyo oo ciidamadii u imaaday nabad sugidda Soomaaliya u imaaday ee maamulka ee ka hor imaadeen ay laftirkooda carqaladeeyeen hadda subaxdii inta soo baxo oo miinooyinka ka faagayo waxaan ognahay wiilka ku geeriyooday qaraxa shalay ka dhacay degmada Jallaqsi marna waxaan ahay habaryartiisa marna waxa dhalay adeerkayga wuxuu ahaa wiil yar iska shaqeysto nolosha rajo kale dhalinyaro ah hadaf leh waxaan ognahay isxilqaan xitaa inuu degmada ka waday mootadiisa xilna uu ku shaqeysanay xil carro ku soo qaaday jidadka meelaha biyaha galeen oo go'ay ku shubay dhagaxyo iyo jaay cid uu taakuleen warsanay ma jirin waa nin firfircoon oo ahay ma sha Allah waxaan leeyahay ilaaha u naxariisto tacsiya u diraya Ibrahim Rashid Cali Gurey Ahmed geeridii ku timid naxtinta lahayd eedadii Xabiibo Muuday dhamaan reer Cali Gurey meel kasta ay joogan waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga siiyo in uu dhaho gudoomiyaha degmada Jallaqsi dabaashe qaraxii ka dhacay degmada Jallaqsi iyo xabadihii waxna kuma dhimanin waa qalad wiilkii meedkiisa Facebook yaalo la wada og yahay in uu dhaho inuu ka tacsiyeeday ahayd maxay xabadaha kuma oo soo dhimay qaraxo ku dhintay laakiin inuu dhaho qaraxii ka dhacay degmada wax ku dhintay ma jiraan taas waxa uu arkaa mas'uuliyad xumo iyo inuu shaqadiisa gabay gudoomiye sidaas laga ma rabin waxa laga rabay in ka hadasho dhibka meesha ka jiro in isfahantiin maamulka meesha joogo ee Amison asi wada hadal aad ku dhameysataan xoog wax ma tara farfar ku taag waxa meesha lagu geeyay waxa waay in dadkaas nimatashid dadkan kala martida ku ahna aad afgaratid laakiin adiga hadaad horseed u noqoto fawdo iyo dhibaato ee degmadina degmo yar ay tahay awalna ay kala socodkeeda iyo jidadkeeda oo xirna dhibaatadeedana mar walba ay soo noqotay inta ku dhimatay degmada Jallaqsi intay Djiboutiyan joogan hadii aan xisaabna cadad ma lahan waliba dhanka galbeed dhibaato aad u weyn hayso waayo ciidankiya degan dhibaatada ugu weyn maanta hadii la soo weerar Djiboutiyan first one dhalinyaradii ay soo qabanayaan container gene maxaa saldhig horta loo dhis saldhig waxa loo dhisay in qofkii markii oo howlgal la sameeynaayo matalan maanta wax dhaceen howlgal la sameeynay shaqada gudanay lagama hor istaagay dhalinyarada qaqabo saldhig geey hadana kala saar qofkii wax ku soo baxaan xukunkiisa mari qofkii wax ku soo bixisooda oo muwaadin xitaa odayaal aan ognaa container lagu xir marka dadka ari ma ahan xoolana ma ahan saldhigo magaalada leedahay dad odayaal dhaqameed ay leedahay maamul ay leedahay maamulka waxa loo soo doortay inay u kala turjumaan ciidamada Djiboutiyaanka hil walaale meesha joogan ee ayaga baahiyaha shacabka qabaan waxa meesha lagu degan yahay oo gudoomiye ku tahay ama gudoomiye arrin bulsho ku tahay ama gudoomiye ku xigeen ku tahay waa shacabka canshuurad ka qaada jidadka uma dhisno biyo nadiif ah ma helaan koronto saani ma helaan waxbarasho ma helaan waxa ogna fatahaad biyaha soo baxay dadka in aan deeqihii loo geeyay xitaa si saani loo gaarsiin waa la gacan bidixaya degmada Jallaqsi waxa ogna goob caafimaad inaysan haysan cid ka hadasho lahayn agabkeeda la soo qaado Hirshabelle laga soo qaado meel la mariyo aan la ogeyn waxay sabab u tahay dadka hadda xilku u hayo oo matalo maanta waa adduunyo biri waa bixay magacii sharaf uga tag oo lagu xasuusto laakiin shacabkaaga hadii aad aad shal ku kortay aad wax ku baratay aad taqaanid waa dhibaato arinta meeshaas ka dhaxday soo noqnoqotay in xal waarta laga gaaro waxaan u dirayaa baaq dheer cod dheer aan u dirayaa goboleedka Hirshabelle madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh deegaankaas ka soo jeedo in ay arimahaas wax ka qabtaan oo degmadaas ku soo noqnoqday iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya degmadaas way hooseysaa qaasatan gobolka Hiiraan marka la dhaho
degmada ugu liidata waa degmo waa goob caafimaad ma haysato waxbarasho ma haysato biyo ma haysato waa inta ay bulshada ku shaqeyso haddana dil iyo gumaad ayagoo beerooda u socda qarax loo geli la kaco wax ku dhintay ma la dhoo la xaqiro ma yeeleyno dadkii deegaankaanahay waan ku dhashtay waan ka soo jeedaa mana ogolaanay أنا عيني اسمين جيسي أنا حبين كترسن قرك قرنك هوين كسوماليات وحان ما انت ربا إنان كجهلو شقاقوين كيراي كدا عيد جمدة جلالقسي دراد يشالي إنك استوي ما انت حالة دي أد ودجنت هاي واقع ما ورت أرمها كدا عمامل كي إسفهان واجا كدا عين إذا ما ذهيل ولا أما أمسون الناس وجرمدي مر والبنا كدا sidaan wada ognahay gobolka Hiiraan qaasatan degmada Jallaqsi way soo noqnoqotay dhibaatada ka dhaxeeya shacabka degan degmada Jallaqsi iyo isfahan waaga ka dhaxeeya ciidamada Djibouti waxaana ugu wacan oo inay u turjumaan ama ay matalaan laga rabay waa mas'uuliyiinta degmada Jallaqsi ka soo jeedo haday noqon lahayd gudoomiyaha ku xigeenka gudoomiyaha amni gudoomiyaha arrimaha bulshada waxaa la rabay dadkaas codkooda inay ku hadlaan oo turjumaan dhibka jiro iyo baahiyaha ay qabaan iyo dhibka ciidamada ku qabaan inay ayaga kala hadlaan dadku waa dad beeraley ah subaxdii waxay u kala haan beerahooda xoolaha way soo foofaan wabiga la keenaa habeenkii meenooyinka jidka la gelinayo Djiboutiyaanka soo bixi jiray oo ka bixin jiray jidka haddii Djiboutiyaanka la carqaladeeyo ciidamadii u imaaday nabad sugidda Soomaaliya u imaaday ee maamulka ee ka hor imaadeen ayaga laftirkooda carqaladeeyeen هذا الصباح دي أنت صبح أو مينوين كفاجايو وحن أجنها ويلك كوجير يوذا قرح الشلة كده عند جمدة جلالقسي مرنا وحن هاي بريرتي سمرنا وحاد على أدير كيجا وحقها ويل ير إسكاش قيستان الله شرجك له لأن يرى هدف له وحن أجنا إسحلقان حتى إنه دجمدة كوذا موتدي سحلنا وكش قيسنا حل عروق سوق هذا جدتك مالها بيها جلنا وكشوا دقحي جاي عد أو تاكلين ورسنا يمجر ونفر فرعون وهاي ما شاء الله waxaan leeyahay ilaaha una xariistorta tacsiya u diraya Ibrahim Rashid Cali Gurey Ahmed geeridii ku timid naxtinta lahayd eedadii xabiibo muday dhamaan reer Cali Gurey meel kasta ay joogan waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga siiyo in uu dhaho gudoomiyaha degmada Jallaqsi dabaashe qarixi ka dhacay degmada Jallaqsi iyo xabadihii waxna kuma dhimanin waa qalad wiilkii meedkiisa Facebook yaa loo wada og yahay in uu dhaho inuu ka tacsiyeeyo maxay xabadaha kuma oo soo dhima qarax oo ku dhintay laakiin inuu dhaho qaraxii ka dhacay degmada wax ku dhintay ma jiraan taas waxa uu arkaa mas'uuliyad xumo iyo inuu shaqadiisa gabay gudoomiye sidaas laga ma rabin waxa laga rabay in ka hadasho dhibka meesha ka jiro in isfahantiin maamulka meesha joogo ee Amison asi wada hadal aad ku dhameysataan in xoog wax ma tara farfar ku taag waxa meesha lagu geeyay waxa waay in dadkaas nimatashid dadkan kale martida ku ahna aad afgaratid laakiin adiga hadaad horseed u noqoto fawdo iyo dhibaato ee degmadina degmo yar ay tahay awalna ay kala socodkeeda iyo jidadkeeda oo xirna dhibaatadeedana mar walba ay soo noqotay inta ku dhimatay degmada Jallaqsi intay Djiboutiyan joogan hadii aan xisaabna cadad ma lahan waliba dhanka galbeed dhibaato aad u weyn hayso waayo ciidankiya degan dhibaatada ugu weyn maanta hadii la soo weerar Djiboutiyan first one dhalinyaradii ay soo qabanayaan container-gana maxaa saldhig horta loo dhis saldhig waxa loo dhisay in qofkii markii oo howlgal la sameeynayo matalan maanta wax dhaceen howlgal ah sameeyay shaqada gudanay lagama hor istaaga dhalinyarada qaqabo saldhiga geey hadana kala saar qofkii wax ku soo baxaan xukunkiisa mari qofkii wax ku soo bixisooda oo muwaadin xitaa odayaalan ogna oo container lagu xir marka dadka ari ma ahan xoolana ma ahan saldhigo magaalada leedahay dad odayaal dhaqameed leedahay maamul leedahay maamulka waxa loo soo doortay inay u kala turjumaan ciidamada Djiboutiyaanka hil walaale meesha joogan ee ayaga baahiyaha shacabka qabaan waxa meesha lagu degan yahay oo gudoomiye ku tahay ama gudoomiye arrin bulsho ku tahay ama gudoomiye ku xigeen ku tahay waa shacabka canshuurad ka qaada jidadka uma dhisno biyo nadiif ma helaan koronto saani ma helaan waxbarasho ma helaan waxa ogna fatahaada biyaha soo baxay dadka in aan deeqihii loo geeyay xitaa si saani loo gaarsiin waa la gacan bidixaya degmada Jallaqsi waxa ogna goob caafimaad inaysan haysan cid ka hadasho lahayn agabkeeda la soo qaado Hirshabelle laga soo qaado meel la mariyo aan la ogaan waxay sabab u tahay dadka hadda xilku u haayo oo matalo maanta waa adduunyo biri waa bixay magac iyo sharaf ugu tag oo lagu xasuusto laakiin shacabkaaga hadii aad aad shal ku kortay aad wax ku baratay aad taqaanid waa dhibaato arinta meeshaas ka dhacday soo noqnoqotay in xal waarta laga gaaro waxaan u dirayaa baaq dheer cod dheer aan u dirayaa dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha
gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh deegaankaas ka soo jeedo in ay arrimahaas wax ka qabtaan oo degmadaas ku soo noqnoqday iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya degmadaas way hooseysaa qaasatan gobolka Hiiraan marka la dhaho degmada ugu liidata waa degmo waa goob caafimaad ma haysato waxbarasho ma haysato biyo ma haysato waa inta ay bulshada ku shaqeyso haddana dil iyo gumaad ayagoo beerooda u socda qarax loo gelin la kaco wax ku dhintay ma la dhaho la xaqiro ma yeeleyno dadkii deegaanka nahay waan ku dhashtay waan ka soo jeedaa mana ogolaanay